ورحمة الله وبركاته داوداشي لمديا كل وقتان وقال السبب الشيكوين مركزي طبعا هكذا شغل أنا هو من الصومالي نقابل كذا محمد سعيد برقب ومركزي أبوان النوري طلبت الشيكوين هذا السبب الأيونا هي ولا قصة دويريو Somali waa sheekada goortii la xarwaadisay هذا ما هي مثلا سدوا ما هي نوع هالسان أنا جاي داوداشة في الميديا وأنا لو لاقي ninkan wuxuu soo qaatay bunkiisii iyo shaaxiisii uu soo qaatay qolkiisii jiifku soo galay wuu fakaray ninkan kadib waxa dhacday inuu fakaro yiraahdo niyo magaalada shaqo la'aan ba kugu haysata wax shaqaana male rag kala jawooyinka iska qabsaday wax oo maaragtay hadda shaqo la qabto ma lahan laakiin waa inaad jaga fiirsato jago bannaan waa inaad fiirsato jawooyinka jago bannaan ninkii uu fakaray ugu dambeyn wuxuu soo saaray inuu noqdo wasiirka dabaysha iyo hawada kadib wasiirka dabaysha hawada markuu soo go'aansaday ninkan boqorku nin aad u xiriir la leh ahaa oo aad maaragtay boqorka saaxiibay aan laga celin ragga xataa aan la baarin kamid uu soo gudbay ninkan wuxuu u yimid boqorka ayris ka leeysanay meeshan qasriga boqortooyada dhexdeeda markuu u yimid wuxuu yiri niyow waa maqlay inuu wasiirada ku dhawaaqay dhawaan maxaana iga reebtay markaas inuu xilkan arkaysid waa wareegto laakiin rag kale hadda qabsado wasiir hore ah laakiin wasiiradii kale waa hadda madaxweyne dadka shacabka u gudbinay baashu kaasa ninkii wuxuu yiri horta boqorow waa naga saaxiibada ah maanta jaga soo arkooday boqorka wuxuu yiri adiga oo ii sheegin ba ku magacaabay jagadaas wuxuu yiri boqorow horta jagada soo arkooday waxay tahay wasiirka dabaysha iyo hawada ninkan wuxuu yiri wasiirka dabaysha hawada wuxuu yiri hawada waxa haysta wasiirka duulista hawada laakiin wasiirka dabaysha wasiirka dabaysha asaga ii magacaabay asaga ninka u magacaabay muddo yar kadib waraaqadiisa waa la qoray subar loogeeda loogu dhiftay wasiirnimo ninkan boqorkii dadka shacabka uu la hadlay yiri wasiirka dabaysha oo hebel hadda kadib xilkaas waa xil magacaabay oo jira way boqorku wuxuu ku dhawaaqo waa way jirtay cidna kama hormaan amarka xukuumadda amar ninkan sacbaar kadib markii uu la hadlay boqorkii warbaahinta واسنا تلفزيون سوفر يستوحي أنا وسيرك دويش شغلة دم تهاي دويش تذكر وحورت مرك واتبع عمريا من أي داقة حرام تذكر لما هاد داقة حرام وحكر أنت كوش دارك ور داقة حتى كم أعرف أنا تذكر جود كل سنة كل مع بقر في قصري وعلى ما واضح لا أمر دولية شغالة بوليسك الملتري ما وحاول كسينا ياجي إن الداقة حرام طن ay ka taxadaraan magaaladana hawlgalka sameeyaan daqadaha ku xareeyaan dadkii dhama markii gudaha wada arooreen bacbaar kadib waxa soo yeertay carrada dhamaayay waxa soo buuxsay mudaharad dadkii waxay bilaabeen inay wasiirka doonayeen boqorka doonayeen daqada uu nagu xar kan abaarka bacay boqorka soo baxay dadku ku gudbiyay ayar buu yiri dadka u sheeg iska fasax iskuwaana de ogeyn dadku
xirtay daaqadaha ninka uu baxay mikrofonkii istaagay hadda kadib caadi waa fasaxantiin xaaladiina kala wadan kartaa daaqadihii wixii u fasaxay marka ujeedada ninka uu ka leeyahay waxay tahay inuu soo bandhigo awoodiisa wasiirnimo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Asxaabta channelka Hilo Media subscribe